الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم واقتدى بهديهم إلى يوم الدين أما بعد فيقول الله تبارك وتعالى في محكم تنزيله وهو أصدق القائلين فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما إخوتي وأخواتي في الله موعظة waxaan noogu filan aayaadkii muallimka uu noo dul akhriyay maqlayseen ee mutanawicaadka ah oo ka hadlayay nabigeena calayhi salaatu wasalaam iyo asxaabtiisii xawaashoodii iyo taariikhdoodii iyo kudaysigoodii iyo waamirtii la faray oo dhammaystiran haddana ka hadlayay xafladdaani waxay ku saabsantahay ah al-Israa wal Mi'raaj masana waxaan wada maqlaynay qasaa'idkii ay markaa culimadu qaadayeen oo dhammaan si door uga hadlayay nabigeena siiradiisa iyo isrihiisa calayhi salaatu wasalaam marka wacdi inta ayaa noogu filan laakiin waxaan isxasuusin doonaa biidnillaahi tacaala kalimaad yar oo maadaama marka uu quraanka iyo adkaarta la akhriyo marka ay carabi ahaayeen aan Soomaaliga iyo luqadan isku dareensiinayno ilaahay baa mahad iska leh qabla kulli shay allahaas oo markii koobaad naga yeelay dad islaam ah qiray tawxiidka ilaahay marka labaadna naga yeelay min ummati sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wasallam oo nabiga fadligiisa ilaahay uu nooga yeelay afdal al-umam sida sheekhaani marka walaha imaam al-Busiri lamma da'a Allahu da'ina li ta'atihi bi akrami rusulikunna akram al-umami ولذا قال الله تعالى كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر إلى آخر الآية إلهي بام هذه السكالة هذا كل مية حفلة غالية الله أقول احتفال النبي أن إسره يمعراج كل النبي عليه الصلاة والسلام هذا ولي بان نبوة فجيي بقعة أرضها كركي هذا كتها الله بقعة وخير بنيت أهمرك بيت الله تعالى مسجد جامعها أفضل بيوضها هذا إلهي نوى في جماسك سبحانه وتعالى إلهي نوحي سبحانه وتعالى لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد إلهي نعمة أو نقل مركانكم هذا نغنى إلهي نعمة أو نزيادين بنبلن قاضي هذا كل جزارنا أو نعمة كشر وإننا عقوبة عذابنا كدحلنا أي رب نوجودي سبحانه وتعالى حمرك آد هذا قلبي عاو مرك أصي قاضي وحقيقة فرح درتي أنا بوحن شو هذا أنا قرنا يمين حفلة قيمة لك سكو ضدك هذا مسايك بوحيي أو مرك هذا شبان أو أمرك ضلير مرك إلهي نبي قد جعل كذا قلبي قد أقليه عليه الصلاة والسلام darentay iyadoo shuyuuqdii iyo duqowdii iyo dadkii weynaa markaa waxba dhaxal laga arag in dhalinyartii marka ay garteen ilaahi subhanahu wa ta'ala waxa uu ku galaday oo nabiyullaahi Muhammad alayhi salatu wasalaam ee ummadihii dhammaan uga fadli badanay inay marka taadiim ka gartaan oo taadiimiyaan ay nabiga jacaylkiisii marka intaan isku yimaadaan dhalinyaro ah waa wax ilaahay looga mahadnaqo subhanahu wa ta'ala waxa marka koowaad marka in ku boorinayaa nabigu wuxuu yiri calayhi salaatu wasalaam taqaddamu wala ta'akharu hore u socdo tilaab qaada laakiin dib hoo laabanina marka in kula dardaarmaya sidaan si ka sii fiican in u sii socotaan u sii tilaab qaadaan mooyeen intaan ka yaraan wariga dibadna u laabanin oo sanad ba sanad ka dambeeyo marka aad ka sii badataan
dadka dhalinyarada ah markasta waa dadka diinta islaamka marka gacan siiyo garab siiya xadogtii nabigeena calayhi salaatu wasalaam dadkii gacan siiyay oo diinta islaamka ku qaweyday shubaan bay u badnaayeen dhalinyaro u badnaayeen mar walbana dadka dhalinyarada ah hadii xumaatan la wadana ayaga loo adeegsadaa hadii walba ayaga loo adeegsadaa cid walibana meeshii markay u adeegto marka asxaabteeda kama noqonaysa maqaamna ku gaaranaysa way ku halaabaysa tani marka waa adeegi ugu fiicnay khidmadii ugu fiicnayd oo ilaahay subhanahu wa ta'ala maqam loo gaari lahaa rabbina subhanahu wa ta'ala wuxuu quraankiisa ku dhaartay sida hayda ku bilowdo maqlayseen in dadka ahlu iimaanka ah iyo dadka marka bani aadam iyo jin iyo thaqalaynka ama ahlu takliifka la yiraahdo midkoodna aanu gaaraynin inuu marka iimaanka uu sheeganayo oo ka run sheego ay dhab noqoto ilaa qofkaas uu noqdo nabigeena calayhi salaatu wasalaam wixii uu la yimid si dhaba qof ugu hoggaansan waliba hadana ku qanacsan oo ku raadi ah hadii qofku uu sheeganayo uu leeyahay anigu ahlu iimaan baan ahay laakiin qalbigiisa nifaaq ku jiro ama laba gaarday uu yahay wax qiimo ku fadhiso waxa la yiraahdaa qofku waxa uu sheegtay ma noqdee waxa Allah uu ku sheegay buu yahay waxa uu qofku isku yaqaano ma noqdee waxa shariicadu u taqaan buu yahay waxa isagu marka uu sumaynay ma ahan waxa uu ku tilmaamay buu noqonayaa waayo hadda islaamnimadu sumad bay leedahay aqeedadu sumad bay leedahay mu'minimadu sumad bay leedahay qofka hadii marka sumadii iimaanka uu ku sifaabana mu'min dhabayo noqonayaa hadduu marka ku sifaayana alimaam noqonayo oo rabbi wuxuu yiri subhanahu wa ta'ala waxaan ku dhaartay allah khaaliq oo ilaahay isku dhaaray rabbi subhanahu wa ta'ala fala wa rabbik la dawa harfu ziyada baa la yiraahdaa waa harfu sila adiga fala wa rabbika خالقيك أبورتان كل دارتي النبي قال له عليه الصلاة والسلام مروا بين يان لا يؤمن حتى يحكموك مروا بين يان هذيك ومضى هذا محمد يدعى إيمان كودر نبما نغني إلى أي كحاكم يشان وهذيك أي حاكم كهدكتان نبي مركو لا يسقى حاكم عليه الصلاة والسلام مركو الدنيا كجورة يبرزق جورنا سنة سي القرآن ككتاب جمع هريا الله يا حاكم نغنيا دين فرقان با حاكم نقنيا ونبي طريقيسي ونهريا الله عليه الصلاه والسلام ونبي عليه الصلاه والسلام سغو نو شيغay anagu markuu geeriyooday inuu san naga tagin sunnadiisi ay hortaalo taraktukum ala mahajjatil baydaa laylaha kanahariha wa naharuha kalaylaha la yazigh anha illa halik aw la yadullu anha illa halik aw kama qala mustafa sallallahu alayhi wasallam wa riwaya mutanawwi'a waxaan kaga tagay sunna cad iyo dariiq cad habeenkeedu maalinkeeda uu la mid yahay maalinkeedana habeenka uu la mid yahay qofna aanu ka baadiyaysanaynin illa qof marka xaq ka ishayo iimaanka laga daboolay marka mooyee ikhwata al-izza waxaad marka ogaataan nabigeena calayhi salaatu wasalaam qofka hadduu jeclaado jacaylkiisa waxa laga dareemaa qofka carabkiisa inuusan ka dayn karin waxa uu jecel yahay marka intaanu intay soo timi nabiga salligiisa qaadaysa masaajidka dhexdiisa ku i'tikaafaysa ugu nagi saacada nabigeena tacdiimintiisa calayhi salaatu wasalaam waxay ku cadaanayaan inay nabigeena jecelihiin calayhi salaatu wasalaam nabiga jacaylkiisa wax ilaahay agtiisa looga liibaano kan ugu maqam weyn weeye wa afdalul qurab baa la yiraahdaa ilaahay waxa loogu dhawaado kan ugu fadli badan weeye ilaahay markuu lahaa subhanahu wa ta'ala وابتغوا إليه الوسيلة وسيلة لمبرك كود وحلو تمام حب النبي صلى الله عليه وسلم سداس النبي يقول لي ألا لا إيمان لمن لا محبة له غفان جعل لهين أو إلهي جعلين أو نبي سجعلين أو الله جعلين ديتا جعلين وإيمان ملأ يولي سبحانه وتعالى هذا واحد من جعل كذاك الرجيو بلانتاديو وحيامك إسك خيالي يا هذا جعل ذكو يقانان وحسك قيمان كفر لنفسه سيو sidii marka orgi iyo ri wax iska shahwaani ah oo marka iska hawaayi ah iyo hadda jacaylan looga hadlaa taasi marka wax qiimo ku fadhiyo marka ma ahan shayga hawaa oo nafsiga inuu qofku khilaafo waajib ay ku tahay waana fardu ayn wa khalif an-nafs wa ash-shaytana wa'sihima wa inhuma mahadaka nafsa fatahim baa la yiraahdaa marka sidiisaba qofku hadii hawadiisa uu taabicu noqdo adduunna qiimo kuma yeesho aakhirna qiimo kuma yeesho qabrina qiimo kuma yeesho wuxuu qofku qiimo ku yeeshaa naftiisa markuu xakameeyo naftiisa oo ka adkaado waxaad ogtihiin diinteena islaamku waxa ay ku kor noqotay waa jihaad fi sabiilillah
waxa la jihaadina waxay ahayd gaalo acdaa oo diinta islaamka ka soo horjeeda oo nabigeena inay disho doonayay oo waliba ay ku faaneen inta nin saxaabiya dileen inay xataa nabigeena dileen u qaatay calayhi salaatu wasalaam mus'ab bin umayr radiyallahu ta'ala anhu ardaa wuxuu kamid ahaa min shuhadaa uhud baa la yiraahdaa ninkii dilay wuxuu u dilayay inuu nabiyullaahi maxamed yahay calayhi salaatu wasalaam nabiga isu ekaayeen ilmadeerna way ahaayeen waa isla joog ekaayeen waana isu midab ekaayeen nabiga sallallahu alayhi wasallam marka wuxuu ahaa ninkii koobaad oo magaalada Madiinatul Munawwara inta nabigu tagin ninkii diinta ku fidiyay uu ahaa oo ragii markay muhaajiriintii Madiina tagtay ninkii madaxda ahaa oo nabigu u diray Madiina oo diinta ka sii fidiyo gogoldii uu soo noqdo nabiga tagitaankiisa calayhi salaatu wasalaam ilaa waxaad ogtihiin haddii marka wafdi qaalihi oo meel aadayo hordhig baa la soo raac la sameeyaa oo wafdi hordhac ayaa la sii diraa marka hordhicii hijrada nabiga calayhi salaam hijrada Mus'ab bin Umayr bay ahayd marka Mus'ab bin Umayr markii ay dileen waxay isugu faaneen inay marka ku faaneen in nabiga dileen calayhi salaam ilaa marka Abi Sufyaan radiyallahu anhu marka soo gaalaha hormoodna ka ahaa ciidanka gaalada ee Makka ka soo duushay tabboodboodo oo marka kor u boodboodo oo yiraahdo uclu hubul asagoo marka sanamkii ugu weynaa asnaamtooda marka ku bogaadinaya kuna tawassulaya oo la sanamkii marka hubul oo kor noqo wad liibaasay waa guuleystay maxad baa la dilay dadkii marka noocaas ahaa in laga hortago oo la dilo oo diinta looga gargaaro ilaahay baa farad yeelay subhanahu wa ta'ala jihaadkii marka noocaas ahaa إلهي ونقول فرض يالي جاهدوا بأموالكم وأنفسكم ونجري نفتينا نكون دجال جلا مالكينا نكون دجال جلا ودين الإسلام كون دفاع عن ليلي مركي النبي وكسر الله عليه الصلاة والسلام وأنت تدل لك نوع عاص أو جلا أو ركود أنت أو ركود دعوة أو لجوح ولا بيلا أو فرضي يكون خربان أو نفي مال بالله كسر الله وهو رجل النبي عليه الصلاة والسلام رجعنا من الجهاد الأصغر إلى الجهاد الأكبر waxaan ka soo laabanay duulaankii yaraa waxaana u soo laabanay duulaankii weynaa waradii nabiga calayhi salaatu wasalaam wala weydii nabiga calayhi salaatu wasalaam waxa la yiri gaaladii isbahaystaban u duulnay marna ugu soo duulaysa waad ogtahay oo marka khandaq waxayna gaarsiiyeen in magaaladii Madiina qof soo kaadisan la waayo in magaaladii dhufis lagu wareejiyo qofka baxal la waayo wax soo gan la waayo waxayna gaarsiiyeen in salaadii aan tukaweyno ay salaadii qaar nooga tagaan baqi daraadeed aan makansalaana ina xataa istaagno tukano sidaas ayaga xalkeenu yahay see marka asar loogu tilmaami karaa anaga la weydiiyay calayhi salaatu wasalaam wuxuu yiri nabiga calayhi salaatu wasalaam jihaadka la dagaalayo ee gaalada ama cadaada la dagaalamayo col muuqda iyo la dagaalamaysa waa col ku muuqda colka markuu ku muuqdana waa waxa isaga jeedo iska fiirin kartid waxaad garan kartaa colka cadada uu leeyahay waxaad garan kartaa cudadka iyo qofka cudada ay leeyihiin waxaad garan kartaa marka dhagarta iyo hagarta maleegayo waxaad garan kartaa goorta uu ku weerarayo ama weerarka adigu ka filanayo waxaad garan kartaa colkaasi inta uu ku jiro iyo masaafada idin dhaxaysa haddana waa dagaal waqti leh oo xilina bilaabanaya xilina go'aya oo mar laga nasanayo marna soconaya waa col laga adkaan karo hadduu joogo marka laga guuleysan karo laakiin wuxuu yiri nafta jihaadkeeda iyo shaydaanka dagaalka la dagaalamaahi waa col aan dhamaanayn afar shay baa isku rakiban oo hawaalig la yiraahdo shaydaanka ra'iisu ah waxa ku xigta adduunyada haalikada ah waxa ku xigta marka hawada oo qofka naftiisa marka rabitaankeeda uu ku shaqeeyo nafta amaarada ayaa ku xigta marka afartooda way isku xiran yihiin waa col isku xiran arbacatu hawaalig baa la yiraahdaa marka nafta shaydaankeeda ee nafta dagaalkeeda haddii aad inta la dagaasho ka guuleysato saddexda kale way raacayaan haddii laakiin nafta ay ka guuleysato saddexda kale ay ku dawafaylayaan oo ayadii marka iyada mar oo ah ay kulli gabaad ka dhiganayaan kuna soo marayaan waxa marka nabigu yiri calayhi salaam a'adda aduwika nafsuka allati bayna janbayk olka iyo cadaada kula dagaalamaysa waxa kugu colnaa badan oo kugu dagaal badan nafsadaada ku jirta labadaada feerood dhexdooda oo adiga calooshaada iyo feeraha ku dhex jirta haddaba wuxuu yiri nabiga calayhi salaatu wasalaam waa col aan ku muuqan haddana aan cadaawadiisu ka daalayn waa col marka aan marna aad ka guuleysan karin haddii aad marka alla ku waafajin
oodan si rasmi uga adkaan waxa looga adkaan lahaa oo daacada iyo itibaaca iyo muxabbadan aad la imaan haddana waa col aadan gara karin tirada uu dhan iyo meesha uu ku jiro iyo goortu ku dhagrayo iyo goortu ku weerarayo iyo xilliga marka uu dagaal kugu bilaabi doono marka mid aadan garanin marka col qarsoon oo ku duugan iyo col ku muuqda isku marka ma noqonayaan midda kale wuxuu inuu yiri sallallahu alayhi wasallam colka naftu wuxuu kaala bilaabanayaa dheerabtii hooyada oo caloosha ka soo baxda shaydaan uu kala kuusanaya shaydaanku marka canuga hooyada laga soo xuduminayo wuxuu ku bilaabaa fartiisaas murugsatada ah inuu kalida kaga mudo markaas canugu qeeldaan bilaabaya asagoo waxa markii loo artay dhalanayaan inayaan markaas ay dhawaaqayaan ba shaydaanka marka farta ku mudaya markaas uu daansi ku bilaabaya canuga asagoo marka dhawaaqay adduunka u soo dhacayo u soo baxayaba maalinkaas uu dagaalku ugu bilaabo ila aad laxad ka gasho il ka gashid dagaalku ku wadaya intaana waxa uu ku soo marayo gaashan oo marka waa naftaadi marka dagaal noocaas waxa lamida ma jiro nabiga sallallahu alayhi wasallam marka waa jihaadul akbar dagaal culus oo aad u culus aan dhamaanay way dagaalka marka qofkii ka guuleysta oo nafs al-amara ka adkaada inna nafs al-amaratu bis-su'i al-alayriye oo u bedela nafsiisa inay marka mudma'inan noqoto raadiyan noqoto halka ay ka baxdo wada fiican ay gaarto qofkaasi wuxuu marka noqonayaa qof liibaanay waxa u sahlanaanaya ilaahay amarkiisa inuu farto subhanahu wa ta'ala oo wixii nabigu la yimid si rasmi ah oo qanco diinahan u rumeeyo sida Allah leeyahay subhanahu wa ta'ala fala wa rabbika la yu'minu hatta yuhakimuka fi ma shajara baynahum ila wixii ka qarsoon ka dhagan kaga xukuntaan mar rumeeyaan thumma la yajidu fi anfusihim haraja alayhi markaas kadibna naftooda aanay ka helin wax ciriiriya dhiba ikhwata al-izza waxa muhiim ah mar hadii nabiga ihtifaalkiisa la isugu yimid alayhi salaam isrihi iyo dhalmintii shariica al-muhammadiyya tiirkeedii bacda tawxiid koobaad oo laba ku ahaa ee salaada cibaadudiin habeenkiina la siiyay marka ay tahay ihtifaal u dhigana ay tahay nabigeena sallallahu alayhi rabbi subhanahu wa ta'ala hortagi uu tagay busaadul usi uu tagay oo dus busaadul usi la yiri ihtiraamkiisi tacdiiminina haddana isugu nimid waxa lazima noqonaya oo markasta waajib nagu noqonaya inaan ogaano nabigeena itibaaciisa alayhi salatu wasalaam inaan ku gaari karno waxa aan doonayno oo khayr daaraya nabigeena ihtifaalkiisa wuxuu wax nagu taraya israha ihtifaalkiisa wax nagu taraya markaan ku dhaqano wixii israhana lagu soo siiyay rabbi subhanahu wa ta'ala hadalkiisa fiiri thumma la yajidu fi anfusihim harajan ma qadayta lillahi subhanahu wa ta'ala wa ina ay ka helin naftooda wax ciriiriya dib aysa ka helin wixii aad xukuntay nabiga lagu leeyahay salaam mar hadii marka nabiga xukunkiisa iyo shariica al-muhammadiyya nafteena aan ku qancaynin aan ka jijirooleyno wax kale aan raadinayno ma suurtagal aha in jacaylka nabiga aan sheegano ama uu noqdo suurtagal ma noqonayso ma suurtagal noqonayso itibaaci nabiga alayhi salatu wasalaam ma suurtagelayso inaan noqono aan iimaanaba waayo waxaan laga doonayaa hoggaansan rasmi ah wa yusallimu taslima wa la yiraa'iyada subhanahu wa ta'ala wa inay hoggaansamaan ilaa ka hoggaansamaan wado hoggaansan dhammaystiran ba Allah subhanahu wa ta'ala haddana waxaad ogtihiin qof walba oo dadkeena kamida waxa naadiro oo fara ku tirsan mooyee hada waxa la yiraahdaa naadir xukun male la xukma li naadir shay haduu kaliyoobo xukun lagu bineeyo laakiin dadka mucdamkiisa waxa yiraahdaan sharciga halayla tago ama sharciga lagu xukumo ama masaa'il bay raadiyaan inta marka wax ka bukadaan ay wax iska noqdaan intooda badanna waxay raadinayaan waa naftoodu sida ay rabtay cid u qiildada inay helaan mooyee sharciga runta qof u sheegay way cayn af laga diriyo kaasi wada ma naga daabal ugu leeyahay waa xaqiiqo jirta xagee marka ka iimaanaya in qofkaasi iimaan sheegto iimaan ku ruugo ilaahna leeyahay mar rumaynayaan hatta yuhakimuka fima shajara baynahum walu fi sahih macnaheeda hatta yuhakimuka fima shajara baynahum thumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadayta alayhi wa yusallimu taslima haddii xataa qofku uu shayga qaato waa qaato ilaahay
لكن قلبيهان أنا كوكا عصرين ونفتي سؤال الرباعين حق التصديق يصير رباعين أصدقوا كوكا عصرين ولا ميديا أصدقوا الديني ولا ميديا هاي واحد يطرح اسم جرتو دي سينا ميل ما جارسين يسوي هده وأنا حق ولا حين ميل ما جارسين كانوا أصدقوا باكو خسارة وعملك مهمة قفوا الباء إسلامه نفسد إسقى أوليه هاي بدبادة إذا أو كشقيه مركو وقفوا نفسي سبب بدبادة كشقيه يشرع سنة بدبادي كريا ومضى الإسلام كبدبادي كريا ونقرأ يا قف حق الله قد يصده مركا صوح نقرأ يا قف دورسون مركا صوح نقرأ يا قف معروف كهالضوفر الله قادنا أيه ممكن كدور هبنا الله قهريه كنت المعنى يا تلماتي قال يا هي أمضى القصة عيو الله سبحانه وتعالى كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر بالله سبحانه وتعالى وهذا هاتين أمة محمد وماذه لصوص صاري الدنيا الله صار ذلك نفع وذا الله سبحيه ومضى أبو خير بدن باتباع الله سبحانه وتعالى ما وجه الخيرية خير بالناشدة محان كم تيسني وجهك يا طريقة أنكوها اللي محويها إلهي باطل وحي سبحانه وتعالى تأمرون بالمعروف وناقي ما تفريسان وناقنا حقين لك بالله فريتان كيس نفت هذا لك بالله أيها الواعظ وعد نفسك مركا نفت هذا وعد يسو يدعيك لو وعدين كريسان قرآن كاسكفيري الله محوي سبحانه وتعالى أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب فلا تعقلون وحجري نبينا عليه الصلاة والسلام يا واحد أخذ من جري ويل يرقو يهودي أبيس يهودي سو يهودا مدينة دقيهين إسقوا مركز دينتي يهودية حيث أبيس كل دينه يو نبينا عليه السلام نبينا واني جري هذا هو شيء جري ويلكنا أبيس وكبقي لكن إيمانك وجعنا مالك الدم ويلك حنوصدي آدم وسكراضي ويلكيو حنوصن بان نبي الصواب عليه الصلاة والسلام إلا وخادم كيسية جرو مركب يمد نبيه وحكير أسلم يا أيها الغلام ورويل يوم هو جانسن وأنا بتقول إسائي هذه الله على كبد بديده هو جانسن ويلكي سقوا أبيه كبقية يوضعي حد يساوي دوري سقوا مركب إن رجع أبيه كفيرنا يبقية يوضعي فيريه waxa marka ku heeraaran qoyskiisii oo niman adeeryaala iyo aabihi iyo koox markay madaarka kooban yaa geesaha laga fadhiyaa kullina waa yahuudna waxaad ogtihiin acdaa islaam way acdaa islaamka oo calmada badan waa yahuud ila qiyaam saa'a nabi sallallahu alayhi wasallam wax alla waxa gaalaba ka naciyihiin waad ogtahay la tajidanna shadana sa'dawatan lilladina amal yahuudu Allah subhanahu wa ta'ala oo kuwa marka yahuudoobay يا أقول عداوة بدن وتكون جالس عداوة دعيهين ذاتك كوكو يرادين آمنوا وكو الرومانيين ذاتك أقول نعم ويهود بالين أما كو مركب اللي يرادو بحنا نصارى ويكجدوا يهود المسلمين تام وأيقوا حكمنا قسيسين والرباب والله سبحانه وتعالى وعلماء on diintii doorinin laakiin nasakheedii diiday oo inkiray oo sida ku gaaloobay iyo kuwa iska suufiyay marka diiba nacay oo kuwa baadiyada yaqaanaan yaa kamida buu yiri kuwaasuna xaq inay gargaar waayaan mooyee in ka istaan oo barna oo waxay xaq u yaqaanaan way hoggaansiin way galihiin in raacaan marka dadkii noocaas yahuud ah oo nacaybkaasi ku jiro qof alla qofkii nabiga raaca marka aflagaaday jiray inay xataa dina isku diiyay nabiga naftiisa dhowr bar isku diiyay xataa ajaraan oo shirqal ku dilaan oo saa uga heeraaran markuu nabigu war hoggaansan wiil uu yiri wiilkii adagii uu soo fiiriyay odagii marka wuxuu isiri wiilkaani hadduu dhinto yahuudiyana ku dhinto nabi maxamed akhir zaman iyo ogtahay arba cadaab galaa asagoo marka wiilkii cadaab kala cabsanaya isaga naftiisina iimaankii aan ogolayn inuu raaco yuu ku yiri adi abal qaasim war wiil yahow qaasim abi adabu yoki sarra wa kuyada nabiga alayhi salaam abal qaasim wiilkii markaasuu tawxiidka ku dhawaaqay ashhadu an la ilaha illa allah wa ashhadu anna muhammadar rasulullah
nabigu markaas uu istaagay isagoo leh alxamdulillahi alladii anqadahu min an-naar ilaahay baa mahad iska leh wiilkan yar ka badbaadiyay naar oo cadaabka koriyay markii sidaas uu odag yeelay oo naftiisii gaalnimadii uu ku reebay wiilkiisina uu macruufkii faray uu leeyahay war islaam maxamed raac wad nabad galeysaaye ya alla yiri isagii amthaash isagoo marka la hadlaya iyo cid alla cidii wanaag dadkii farta iyana la imaan weysa atamuruna an-naasa ma dadkii baad faraysaan u sheegaysaan bil ma'ruf wanaag wali subhanahu wa ta'ala wa tansawna anfusakum adika nafafiyalkiina ma halmaamaysaan oo naftiini hanuunkeedii miyad ka tagaysaan afala taqilun warmiyana wax garanay baa Ilaahay subhanahu wa ta'ala qof aqli leh inuu naftiisi baadinimo iyo naar uga raadi noqdo cid kale tan janna iyo rida uga raadi noqdo waa safiinimo iyo aqli darro weey marka miyana dad wax garta ahayn baa Ilaahay subhanahu wa ta'ala in dadkii wanaag u sheegtaan adikuna cadaab dartiina ku gurtaan ikhwata al-izza qof walba marka naga mid waxa laga rabaa inuu naftiisa wacdiga ka bilaabo qof kasta waacida waxa la ayuha al-waacid waacid nafsaka leeyahay waxa lagu miisaaliyo qofka waacidka adka wacdinaya isaguna aan wacdoosanayn oo dadkii marka wuxuu sheegay ku camal falaynin soofa ayaa lagu miisaaliyo dhagaxa liisinka la yiraahdo dhagaxa marka wax lagu soofeeyo isagu wax ma gooyo oo ama liilan ama hilib inta kuma jiran kartid wax ugu goynayo waa wax iska waxba hadii la fikirayso aan sameeynin laakiin mididii la mariyo afbu u yeelaya waxay jaraysaa marka waxa la yiri qofka marka waacidka aan waxba ahayn waxba wax wanaag qaadanay dhagax haas buu la mid yahay naftiisii wax ma tarayo halagan ka ahayn laakiin dadkii kale tabaq wanaag u taraya marna waxaan ku miisaaliyay faynus inuu qofku la mid yahay hadduu waacidii dadku u sheegay wanaag u sheegay khayr u barayo isaguna uu saqaadanaynin faynus daaran buu la mid yahay hadda halkan baa la bartay waxa la yaqaanay bahal faynus la yiraahdo marka liifad loo daaro oo gaas lagu shubo oo marka dab lagu shiro ama bahal la yiraahdo matramigis oo marka aad u buux badan oo marka lagu daaro dab lagu daaro meesha lambada waa la isticmaalo ama spotlight laga isticmaalo yaa loo isticmaali jiray oo iyagu nalweyneed faynus marka noocaasa yaana ku miitaaliyay faynus taasi ayada waa isgubaysaa dab baa ka shidan waa gubanaysaa dadkiina nafci kale intifaac bay helayaan iftiimay helayaan waa kulli baanaya marka qof isagii dab isku shidaya dadkiina anfacaya iyo noqonaya qofka marka aan naftiisa wax u taraynin dadkiina wacdinaya marka qof la arko waxa laga doonaya ogaataa adiga nafsadaada inaad horta wacdiga isku bilowdi marka naftaada wacdiso oo shaydaan iyo naftaadii xagga iska dhigtid marka dadka kale gudub laakiin naftaadii halmaanto oo tiraahdi dadkii waa halaagsamay balaaya ku dhacday dariiqi waa kala hadeen kuwaas waa gaalo kuwaas waa buxtadico kuwaas waa fasaqo oo adigu isla hirtid ummadda waxa loo halaagaya markaas waa dambigaaga garo adiga mutadahirka ah oo naftaas dahiraya dambiki ugu cuslaada ku jira xayana wuxuu yiri sallallahu alayhi wasallam qofkii yiraahda man qala halaka an-nas fa huwa ahlakum oo kama qala sallallahu alayhi wasallam qofkii yiraahda dadku way halaagsameen isagoo iska bari yeelaya dadkaas ku jirin ee dadkii kale macsida u nisbaynaya isagoo iska bari yeelaya isaga ka halaag badan oo halaag ugu horeeya maxaa yeelay wuxuu noqday qof asagoo isla weyn isla taajubaya ra'yigiisa iyo aqligiisa inuu la weyn yahay dadkii kale la xaqran yihiin markaana qof mutakabbir noqday oo mutaajjib noqday والتكبر والتعجب من أمراض القلوب قمر قلبي كجرا وعمل كيسي مردود يوم الصباحية إخوة الأعزاء وحنا لقرب هو تواضع وحان هذا احتفال النبي عليه السلام تسريه بعلاج كيسي يعني وحان نبي يقول لنا ونكون راعينا والتواضع وحده عشان هذا نعاود سوتشينو بلغنا سوتشينو انت اصلا بلغنا سوتشينو هذا الله مالي والبقى تاينا ولا تاينا انه انا نرجع تعظيمنا واحتفالنا له لكن سنه يسي ان كعمل قليل وحان بعد يا حمان يا فلان مسيسرين marka rabno nabigeena عليه السلام ina silkiisa qabsano in nabiga guntigiisa aan ku dhano gacanta naqabto qiyaamo wa ina nabigeena raxma عليه الصلاه والسلام وما اتاكم الرسول
الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا إليه سبحانه وتعالى. waxaan uga dan leeyahay dadku waxay yaqaanaan badanaa oo la bartay habeenkan oo kale in laga sheekeeyo nabiga dhalmadiisa taasoo mar iyo halkaas uu tagay laga sheekeeyo taasi waa siiradii garo siirada markaas la aqriyaa ama la dhageystaa laakiin siiradaas maxaa la isu baray looga dan leeyahay maqsuudka looga dan leeyahay waa in nabigeena lagu daysado calayhi salaam haddii marka aan itibaaci bahay inaan siirada ka sheekeyno aan raaci diidno maxay noo taraysaa horta siirada waa inaan raacno marka hore waa inaan nafteena ka bilaabno isku boorino oo nafteena ku xakamayno in nabiga aan ku daysano calayhi salaatu wasalaam cid walba cadaalad ka tagto maxaa imaanaya man amila amalan laysa alayhi amruna fahuwa raddun والرواية سبع مسلم كذا في شيخنا محل بيجي ماشي من عمل عملا حاجة نسيت من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد وفق السلوك الرئيسية بالله وحشر عدد الإسلام كخلاف سنة ويرد هلكم هو هذا حديث كان لقى هذا اليوم وحل الردين اليوم أمر لقى هذا اليوم اشتغل خلاف سنة إلى اللي لقف كانوا بدعي مركز زيارة وحكى شيء كبير معها adiga naftaadu hadii salaad asixan weydo murtadi baad tahay amalkaagu waa marduud hadad ka ruush sheego ida birwaalidkii waxaad soo dirisay waa qeyb sharci marduud buu noqonaya hadad iimaankaaga ka ruush sheego weydo waxaagu waa mubtada oo la tuuraya hadad xukunkii sharciga ahaa iyo iftii ka ruush sheegayso ahata mubtadi baad tahay xukunka waa la tuuraya kulli marduud noqonaya fa radd ala alihi waxa markaa la rabo waxay tahay وحين النبي إنه لا يمد أمور لها إن أفرتنا نصير النبي والنوفر عليه السلام سيد النبي والنوفرنا واسنا كتبنا نوجو قرآن وأنا إنسان جرسيان أنا الإسلام وحامل هذا إنه لا يمد صلوات الله عليه وحلا وحي من هي هذا ونكره من كهرنا وما نهاب عن فتوى عليه سبحانه وتعالى وهو إذا كره يا كهر يا نبي الله يقول سبحانه وتعالى وحينما يكره كهر waxa uu naga reebay marka maxaa kamid noqonay wax la koobi karo ma ahan laakiin hadda waxa loogu darnaas xusn waa gaaraan waxa leeyahay waxa uu fadlan afdal ilmi ibn halba leeyahay hadda saacada taagan wixii taagan cilmi loo baahan yahay yacuud uu fadlan markaas waxa marka la hortaagan maxay yihiin waxa la hortaagan waa inaga isxasdayno waana isxaqdinayno ina isoo kuntayno ina isxamanayno in dira Allah imaanayno إن أنا وشاد نقولي ورد مجيء قف كلام تقول عني أيوه قف كلام تقول مركز دور أيوه تامر هل يوم نقول نقول يا أخوتي وأخواتي بالله كلا ثم كلا لا يمحي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه أو كما قال المصطفى صلى الله عليه وسلم أحد كي مروا بين أيها أحد كي يهليون نغريون إلى أولاك لا تعلمه وحا أو نفتي سلج عليها وناقة وللقي سأوليمان ولا جعلونه نفتها محل جعشها إنا عيدنا وحكاية الشيقين عيدنا كو حمان عيدنا كو ضعنين هذا ولاك حانت كداء ضعني كداء نفتها محل جعشها إنا قفناكو حقدين ولاك حقدين كداء وهذا كيسان أو خليل تصبح وين جوخ حمان سجن بلا يكون عملنا كل هبل بان أسبوعين يا هبل أنا أسبوعين يا هبل لا تجي هبل ويسور إذا نفسي زبالة أرنب أرتا ورد جاي واحد ولا شيء ده إلهي درتيس بس واحد ولا شيء ده إلهي غيركيس إلهي ده ولا شيء ده عند مخلوق لم بقلب يا كسان عرب كاغر كديسو ومن يتوكل على الله فهو حسبه والله ثم والله قفك إلهي بكرة صانعه إن أنا عدي وحدي بكريم عدي والبا وحدي باسترادان إذا خلق سبيس أيضا خلق سبيس لكن عندك وحلقات بياه إذا قلب السافية هين إذا وحسبيه وحدد أوقاتها ما هذا استراد وسني سبا علومت على خميسين أولاد الخميس يقرأك خميس واحد بيسوي عبادات هذا مخلوق إلى إسقاط دفاع حتى أصل هذا
أولو ألا ما أنا عابدين مخلوقات الدفاع عيسى مخلوقات الجد عبادة إلى ماذا عابدين عبادة وعياذ ربنا رئيسا وحال قرب مخلصين له الدين بالله سبحانه وتعالى وما أمروا إلا ليعبدوا الله الضوامد الإله الوفر إلا أن العبد المياه مخلصين له الدين دين تبقى مخلصين كما حكى سيحون قف بني آدم كل بقف إسلام وبقى فليا أنت أصلا عامة نقلية مثل لك قبيل فواي هذا العبد اللوجة ما يوسف دشي ألا العبد يوسف دشي قرآنك إلهي وحي لو أنت مو فضي مدنا قف مضرر عليك سيدي الله ما قف لنا إن الله تعالى يعامل العبد العبد بخلقه علينا إلهي وهو أعطاك كل معاملنا وهو أعطاك كل معاملة إلهي مخلوق يسي هذه هو حالة جرة واحدة خرط مخلوق يا أبو طيب رب العزة جل جلاله وهو أبو طيب الله سجى يقان هذه أنا راعيها يا ولدي دعي الخلق لخالقه إلهي مخلوق يسعد مخلوق يبقى سدى أبونا وحي له فرعي الأمر وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون وحي مركا لغو أمر عبادة إبقاها الأمر مركا صلح عن غنى يستقفنا محمد عليه الصلاة والسلام مركا محاد جارسة وحاد جارسة هذه أي درع العياذ كان نغطه كيكو سحرين وكوكري وايو أساقي سعسعه وأساقي سكده وليقو كيكو أسميين وأساقي سكده وليقو ومسكحني وخرف في النغضو أدينا حي سكالي بيقو كي أدينا كهباراهي إنا مركا فرسي دلعضو وانا كقاضو إساقي لو سكده وليقو أساقي حوليس دادكيسو بابقو وحو والبو هلاك أدينا كل السؤال أساقي يتيب الله وانيا محايا لي إلهنا وحكو صغيريا ملائك حفظاء ما هدي قفل لبوك الصناعة ملائك حفظاء بسكريه وعلم أن ليسا وها إلى لنا يا حافظ إلهي سبحانه وتعالى وكجنا إلهي حينداب كيس العظام إلهي لها إلهي حينداب كيس العظام سبحانه وتعالى وحمرك الرباط إن أنا النهارده ماشي أنا لقاها يستاهل إخلاص الله حي إخلاص الله أنا حي أنا سكوت إنه إن عبادة إخلاص إنه قطه إلهي درت إنه قطه مركي أسأل لي باني وحكنا بدنا قلبي جانا إن قف حقدي أو قلنا نروح إنه إن قلبي جانا قف لك حسنا كنا بنقلين قف الله أركبك وحل واجب كل غنية نبي الله محمد صلى الله عليه وسلم اتباع عيسى إنه راعوا لي ماله وحد أكتي ما حقيقة نبي محمد صلى الله عليه وسلم والله سحر وإلا سحر الأسوديين رب العزة كنا بنقلين عندي سحرتها حكومة بيسوال العقاد واحترق اللي يقالنا ولا حسدي انت حسدي ماشي كنت بدال اللي يقالنا اي واحد متاني إلا الدين اللي اسكت دي عندي اسكت دي عقلها في المطي يفعل هذا اللي انت واحد لو زي هي تاريخ القرآن قسائي تعلم على القاضي يكون تحكينا كل يقول والله تاريخها من تحكينا والله قاضي والله كشكيني وحال اسكت دي النبي قالنا ان اسرار اسباب اللي قد اللي اسكت دي عندي اسكت دي نوالوجي نبي الله موسى نكي أسرق في الماجي بلعب بالبعورة وها وحو يقاني اسمه أعظم كو يقاني وقفني هل كنا واقع الله وحو طول له يلي والله في رسول عرشك إلهي مبالعتنا الله محفوظ واخين جري وحل الله حبيه الله مركب ما قالنا موسى هبارنا عرب كبر رفع خلقات ما قال كلمتي كنا واقعين عرب كذا صنع مرقاسه وحضري كما كلب سيدي أيوه كلب عرب كان بس كلا الله أنا ما سوق سكرين عرب مسؤول سكري حضر وقعتان أهل الله هنا مركز اتباع عضو النقطة نرجع حفظي إلى حفظني وكان الله حفظني وحنا هذا عونه عرقناي حقيقة زاد أهل الله يعني وأنت الصفة عادية الله كاني وساء قطع يسوي قفكي أما الصنع عادية الله كاني ساء قفكي شيء أصلا أفكر لي قفكي أنا برت إسكت دوري قبل أقول أنت أصحاب في دحوة كده علي هك هذا قوي قرنوا لي قرن أنت كده علي هذا حتى قبل شوفه أهل الله ورا ما دماري أنت قرآن في شوف بدأ وعي هذا عندي واحد لقى أقول هذا وأنت ما يلي وابل إمام النووي وبيجي قف هدوي هذا أهل القبول الله أرك هدوي هذا هي حلال الله وتولى ويهدوي هذا وجاهل الرحمن الرحيم شريعة الله ضرب بالأخلاص جالي يزور الرمية
marka ilaahay subxaanahu wa tacaala inta qur'aankiisa misxafka dhexdeeda yaallo ilaahay awliyadiisu adduunyada joogaya qabuulkii alla siina way lahaanayaan oo alla ku dhaartuu yidhi wala in sa'alani la'ucdiyanna wala istacadani la'ucidanna way taagnanayaan laakiin had iyo goorba axwaashaa kala bedelan iyaga naftooda ducaday ducayn lahayeen yaa kala bedelan waayo qofkaani hadduu qofka xataa ducada ka dalbaya ama dadku ku dhex leeyahay hadduu arko inuusan munaasab ahayn waxa isaga alla makaniyey oo ka daysanaya labadiis ka daysanaya waxaa marka dhiglakirinka ka imanaya qofku markuu yidhaahdo siisa wax la aqbalayahay ma jiraan isagaa wuxuu noqonayaa qof quustay walqunuudu kufrun iska ilaali ilaahay raxmadiisoo laga quustana iyadaaba gaalnimo ah waxaa marka la rabaa qof waliba qofka inuu ku walaashado ilaahay dartii nabigeenna calayhi salaatu wasalaam habeenkii la dheelmiyey ee hadda xafladda aanu ihtifaalayno eed maqlayseen suuraddii mucallimka akhrinayay subxaana aladii asraa bicabdihi layla من المسجد الحرام المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير الله سبحانه وتعالى آياتك كبرى يا علاماتك هبين كان نبي قال لا تسيي محاكمها عليه الصلاة والسلام عبر بدن با لا تسيي حصري علينا لو كبي كرينين وحاكمها ضدك الدين تيس الشيغانيا ومديس كو ابتسنيا مسنا عن حق الاتباع راعين عقوبات متسنيان وحاكمها النبي عليه الصلاة والسلام waxaan soo maray dad cidiya dhaadheer oo maara leh oo wajigoodii xabadkoodii ku hoolaya oo saa isugu baabiinaya aan ka daalaynin dhiigu ka hoorayo naftoodii isxaribaya ee cidiya isku dilaacanaya marka ay kuwaani maxay yihiin wuxuu yiri marka waad kuwa ummadaada kamid ah ee shariica al-muhammadiyya aan sidaba u raacin dadkana markaa xumaan dhexdooda ku faafiya dadkii walaadahana dad abriyo oo dambi aan lahayn wala roora waa kuwa iyagu markaa dhexdooda wardabagayaasha oo dadka iska raadiyo waxa marka hadda sameeyaan kamid aad ugu daran waxa aad u batay waxa la yiraahdo dadka zawjaynka mucaamalo xumadooda iyo ikhtilaafkooda iyo dalaqaadka waxa la yiraahdo habeenka cuqubaadka nabiga la soo tusiyay kamid ahayd asalaam oo wuxuu yiri waxaan arkay dad meel fadhiyo tiro badan oo hilba carfayo shiiran hor yaalaan kuwa qurmay oo tisci ku dhashay lumaynayana oo naaf baqtiyo lumaan hortooda yaalo ee mid ka qurmay ruuqayo cunaya kii carfoonana xaqiisa aan fiirinaynin marka ay kuwaani maxay yihiin wuxuu jirigu yiri kuwaani waa ragga iyo dumarka xaasaska ah ee inta xaaskoodii ninka ka leexday gabadhina ninkeeda ka leexatay kuwa kale marka balaya la tumanaya oo gobol dhaaf sameynaya dadka noocaas marka cuqubadaas u taala waxa hadana wiigu yiri waxa arkay hadana ayagoo godnaar ah inta la shiday holici marka ay dad wada qaawan inta lagu shubay markuu holicu kor soo boodanay la soo foocayaan markuu holicu la laabtan la laabanayaan ee markuu holicu la soo boodo ay noqonayaan qof marka caadi ah ishaysata markii hoos ugu laabtaana dhuxul gubad markay noqonayaan markay kuwaan maxayna waxa waa zunaad dadka zaniyalka oo zinada ka caadi yeeshay ya halkooda soo noqon baa markaas oo nabiga hadana sii waday xadiidkii wuxuu yiri waxaan soo maray gabdho ur badan oo qurmoon oo carabkoodu naasooda hoosada ka laalaado ee carabkoodu meel ka daadanayo ee cid walba u jeedaa isaga ka qabsanayso markaan weydiyo kuwaan maxay jireen waxa uu yiri waa kuwa ragooda ka dalba dalaaqa oo ku yiraahda aswaajta daliqna bighayri udrin bighayri sabab sharciyin ayadoo cilla sharcigu ka lafta aan jirin kuwa dalaaqada dalbada ya noocan abeen ugu yiri haddana dadku waxa moodaa in wardi u tahay inta badan wardi u tahay ikhwata al-izza waxa marka muhiim ah qof la arkeen naga mida nabigeena horta caliisaan inuu isweydiiyo muxuu sabay jiray markaad isweydiiso nabigu muxuu sabay jiray asxaabtu maxay sabay jireen markaas waxa ku soo baxaya miisaanu shariica markaas isfiirin kartaa adigu sifadan ma leedahay oo san ma yeeshaa waxay kaaridiin ma ka hartaa waxay yeedii ma yeeshaa ma seenno maya markaas laga rabo inaad tadbiiq diin ah
إلهي سبحانه وتعالى وحونا فريق قرآنك إنا وحا وناقا يلنو وحا ما تنسك دين وحو يري وافعلوا خيرا لعلكم تفلحون وروناقا يلو وحا وناقا سمية والليباني ساني واحد مودا شرطي سمية أو حمانتا سمية إن لقبور هنا ليه مودا أو شريعة لأن عكسمي ولا يوم اسكدينو عكس شريعة اسكدينو شريعة معكوسة عن اسكدينو وقف الله أركبها اسكديو إنه نفتي شريعة كل تطبيقية شريعة كل دبولة شريعة وحى الله تطبيقين كان يا مركي اللي يقانا قرأ هذا واحد من الدادات أنت بدأني يقانا بقى قفك هذو علوم شرعية برانيو قف استقبل مضادم بقى الله إنه يهبه حقيقة قفك مركا عمل كالرسمي هي متعلم كالرسمي وقفك شريعة برانية أنت كلا نوع يسوق تجيان قفك حمالي قا شقي يسوق تجيان قفك بيرت قضية هي كان حمال ده وحكوسي ده هي كل يسوق تجيان محيي لضمان وحبر شكستو الدنيا مادية مقصد كده محويه للأمور وحل الوسائل حكم قصيدة لهذا وسيلة كسته وحيلها وحل لوجا قصديه مركز تعليم ثاني ووسيلة مقصود كده محوك الدمانية وبدر يجرو عنا الله عنو كده دمانية عنا حاجة كده ماتا مسؤول كده ماتا سانك على قبسنا يا شيء أعرف عن سانك تقبسنا دقيقة أجوبة كده قبل أنت سويت كيسا إن مركز تاقف كوي قانو إنه مستقبل كدكتو وقويها نسوت المامو وجهل مركبة حقيقة الرسمية وحال ربا قفكو إنه تعلمتي مادية يا الدنيا شقدي إذا جعنتي بدك قبصده لكن جعنت مديك يا حوج أوصاره شريعة المحمدية أوصاره عمل الآخرة وقاده الدنيا مسرعة الآخرة نتهاي ماشي آخرة لك شقين لها وحي قبر اللي قبت بادي لها أو محشر اللي قبت بادي لها أو نشر اللي قبت بادي لها أو سراد اللي قمر لها أو جنة اللي قاري لها أو درجات اللي قد دلع لها جنة إن يهين واحد ما أنت كسبته واحد كسب كوكو قاري كرتاهنا وعلوم الشريعة هذا مركز تاويسو واحد نغني سأدي وجاهل أدية كبحديد بل هذا قف سلاح حاجة أدية ببرتيد هذا الدين تبران وحاك ونعي جهل مركبة وحال اسمه ليس أقنيها وحال ولا يقف كان يبيع يدي وطاي أقنت وسر رسول يقانا ما نستجسي يقانو نجسون رقم يقانو صلاة أركان تدي سفع ما يقانو هو يقانو كل جذب هدي اللي رمانته باع ما قشر دي وليه هاي ما قشر رني وليه هاي ما يقانو هدي النكاح إما سرق دي وليه هاي ركن يسمى قشر دي وليه هاي ما يقانو قورنا ودنيا هذا ما أرجع بقف نكاح يسوق هذانا قورنا دنيا بحورك كيف بدلانية وحاسس الدين دبحان ماهن واحد من الدبركة خطبتي قالها أو فصل الدين عن الدولة أي ذهان دين يا سياسة يا الدولة هلا كلا صعاء دهان إنه يكون يقول استعمل المدة أو ضدك إما بدني آمنين حل إلى هذا الدين هو السياسة الدين هو الدولة دينك أسجع سياسة أسجع الدولة أساسا قفك الدين تيجان لا تسجع سياسيا أسجع أن أقول درجة الرعية عند الله تعالى وعند الخلق يا الشافعي محنا يريه من أراد الدنيا فعليه بالعلم ومن أراد الآخرة فعليه بالعلم قفك هدو الدنيا ما الربو علمه كبرته ما هي لي الدنيا قفك أخذ ما إلى أديكسته أما قفك لو أديكه الدنيا لو أديكية الدنيا كل نبأ وأديكية بقرة أصلا خدمة النقرية قفر شرعة يقانه كنا دقمه بقر كستا يعد كستا حول لا يقف كستا مدح اسكا دغيسay asaga khadiim noqonayaan hoos imanayaan marka waxa la rabaa inay shariicadu marka dhab naga noqoto ilaahay dadka naga noqoto diinta nooleynteeda markaas aan liibanayna aqoontaadii xoolahaagii ka kasbo waxaaga wado adduunyada dhinaca ka kaxayso laakiin xalaal ku noqoto xaraam ku dheehin haddana ku noqoto inaad ugu tala gashid diintaas haydeedii adduunyo dhan waxa la abuuray إن ضاعت الله كلمست إنما خلقت الدنيا للمؤمن ليس على ضاعت لها لي الدنيا نبوح الله وريدك المؤمنين تأه إن ضاعت وكلمستان سيدا سواح عرفت مركي كنت فيقي لك هذا اليوم حوالها أي قالوا هيسته مركي قال الله قصر دعاء الإسلام قاعد يقص قصدان في بقى الليل هذا يا غريمة فين حاجة كيمت من فاء إذا رجع شيء مركو صلى وطملك صلى في له يقانا وحالك لو ما قعبيا xoolahan ay gaala hayso waxay ku jiraan gacan aan mustaxiq ahayn oo munaasab ahayn
markay gacantii islaamka ku soo laabtaanna gacantii ilaahay bay ku soo laabteen sidaas marka fay loogu magacaabaya waxa marka ogaataa ciidan sideedaba xoolahan xaq u lahayn tacliimta ay sheeganayaanna ay been tahay inaad dhalanteedkooda inta run moodo adigu ku diin sheegto ee adoo ummatu muxammad qiimo aad beesho oo saacada ku gasho oo hadhow ay la soo safatid warada waa khasaare mid ugu daray qof la arko cidda camalkooda yeesha la soo kulmanaya waxa marka la rabaa adoo adduunyadaadii shaqaysanaya oo xalal kasbanaya inaad ugu tala gasho adduunyadu inay tahay sahaydii aakhiro sahaydii diinta oo xoogga aad saartid waxbarashada diineed iyo camalka diineed aad saartid oo qiyaamo aad ka fakartid oo maalkaaga iyo adduunyadaada dhanba aad uga fakartid aakhiro inaad ku gaartid oo isa wasiilada ku noqoto haddaan taa la helin khasaare kugu soo laabatay noqonaysaa ikhwata al-izza waxaan isu dardaarmaynaa oo naftayda iyo nufuusti baan u dardaarmayaa ilaahay taqwadiisa in run naga noqoto ilaahay xaqa alcibaada in la caabudno camalkeennu ikhlaas uu noqdo tacliimteennu ay noqoto tacliim ilahay dartiisa ah hadday maadi tahay iyo hadday diini tahaba ilaahay dartiisa ay noqoto isfafanjooqin cidla ah shaydaan baa ku khasaaray ciddii isfafanjooqisana waa raadkiisii maxaa u dambaysay ibliis fakhruj fa innaka rajiim halkaasaa u dambaynaysa garo muxuu muteystay alkhuluud fi nnaar adiga ciddii ku raacdaba jahannama ka buux baa lagu dhartay subxaanahu wa tacaala ikhwata alciza nabigeenna calayhi salaatu wasalaam habeenkan la dheelmiyey ee alsam micraaj la yidhaahdo nabiga fadaa'il badan baa la siiyey waxaa nabigeenna habeenka fadaa'isha la siiyey ka mid ahaa ee aan cid kale adduunka la siiyey aanay jirin inuu nabigu gudbay sidratulmuntaha almuntaha waxaa loogu bixiyey dhulka wixii ka kora ayada ma dhaafaan wixii ka kor ka yimaadana sooma dhaafaan ayadaa waxay tahay kala rogmad malakul jibriil waa malaa'igta malaga ugu sarreeya tobanka malag ee la ru'aso malagta la yidhaahdo ra'iiskooda weeye tobankaasoo madaxu sii yahay haddana waa malakul waxyi wax alla waxa ambiye iyo rusula mucallimkoodii weeye waxyi kasta isagaa loo soo dhiibi jiray haddana ummad kasta ee kubirta oo ambiyada khilaafta waa malagii halaagi jiray waa isagaas ummad kasta la halaagayo isagaa loo diri jiray oo halaagi jiray malagii noocaas ahaa ee maqaamkaa gaaray wuxuu leeyahay 600 oo garab ayuu leeyahay ama janaax garab kastana wuxuu awdayaa maa bayna almashriqi waalmaqrib waa 600 oo garab oo mid la dooli karayo samada qaasha qorra ka soo baxdo iyo meesha u dhacdo inta ka dhaxaysa iyo marka dabooli karaya marka malaga noocaasa markuu nabigeena raacay calayhi salaatu wasalaam oo dheelmintii isra waxaa loo yaqaanaa maa bayna almasjidayn oo aayaddan waxay ka hadlayso israha ah bayna almasjidayn baa la yidhahdaa waa min almasjid alxaraam ila almasjid alaqsa min almasjid alaqsa marka masjidkii xurmada lahaa ee kacbada ilaa baytulmaqdis waa baydka ay yahuudda dhibayaan ilaahay gacantooda ka bixiyo ilaahay qaadir buu ku yahay waxna lama aha waa u sahlan tahay isagoo marka cid kaloo khaldan gacantood gelinaynin ahlu iimaan dhaba gacantooda allah ku soo wareejiyo si dhow oo degdeg ah yahuud gacantoodana allah ka saaro marka baydkaas masjidulmaqdis ah iyo masjidulxaraam inta u dhaxaysa yaa israha la yidhaahdaa wixii ka bilowda baytulmaqdis ilaa busaadul unsi laga tegayana waxaa la yidhaha micraaj waa korintii nabiga samada loo qaaday sallallahu alayhi habeenka markii magjiib uu raacay markuu nabiga loo imaanayay oo isagoo jiifa kacbada garabkeeda guriga umihani ee masjidul xaraam garabkiisa ku yaalay wuxuu nabigu dhex jiifay laba nin oo nina adeerkii u yahay nina almadeer yihiin adeerkiis xamza iyo walaalkiis ina adeerkiis jacfar bin abi talib oo ahaa sayd cali walaalkiis 10 sano ka weyn buu ahaa labada nin buu dhex jiifay oo nabiga dhexda ku jiray markii loo yimid waxaa jibriil la soconayay laba malaa'ig kale la soconaysay oo waxaa la sii markaa miika'iil iyo israafiil baa la yidhahdaa waa ka ayaa la soconayay markaas malakul jibriil saddexdii halkaas u istaagay labadii kalena geesay ka istaageen markaasaa midkood wuxuu yidhi saddexdan kan ugu khayr badan qaada maya kii kale wuxuu yidhi
كابي محمد يا سدحدا مركز سوري محمد وكان خير بدن قاضى مركز هذا سؤال كله بتقول واك هذا محمد جبريل ما يقول وانك دحاتك gacanta waaqatay markaas saa gacanta ku dhigay markuu gacanta ku dhigay halka waa intaan buraaqadii la saarin oo dhalmitiba la bilaabin waxa la tagay labadiina iska hurdaya laga dhaxbahay hatta labadiina la jiiftay ma aanay dareemin nabiga in laga tagay alayhi salaam ayagoo hurdaya laga qaatay loo soo celiyay markaas laga baxay hore loo marsi dhaqaajine waxa la geeyay inta zamzam ceelka zamzam oo malakul jibriil ciriis oo ku qaday ee labadii cirbood ee nabiyullaahi ismaaciil oo ku xaqayay markii uu haraaday oo asagoo canug yara meesha uu yaalay ee haajara oo hooyadiisa asaga meesha uga tagay nabiyullaahi ibraahim waa qisa dheer meeshii ceelkii ka baqay ee hadda marka zamzam la yiraahdo nabiguna yiri sallam ma uu zamzama lima shuriba lah ma uu zamzam wuxuu la cabo u sugnaaday hadduu qof caafimaad buu kaleeyaa hadduu cilmi uu kaleeyaa wax alla wuxuu cabo qofku ilaah ku siinaya hadday niyadu ikhlaas tahay way bal ku day maahan iyo waa la sheegay maahan isagoo mukhlis baa la rabaa agtiisay geeyeen malakul jibriil halka dhuunta godkeeda ah yuu ka saaray marka badiil nabiga sallallahu alayhi wasallam kaas wuxuu ku geeyay maraaqul batni halka caloosha jiraacda hoosayda ee xudunta asalkeeda ah intaas oo wanqaray sidii orgeera gabar qalanayso yuu dhac kala siiyay maradaasina waxay ahayd cidda maraadkii ugu dambaysay kow waxaa nabiga la dilaaciyey 4 sano maalikuu jiray oo guriga uu jiray xalinta sacdiya oo wiilkii dabra ahaa waxaana ula jiray qisada waa taqaanaan laakiin waxaan rabaa maqsuudka aan ka leeyahay kaliya u gudbaya inta kale waxaan ka rabaa markaa dabagelis baan ka dhiganayaa midda labaadna waxaa la wanqaray marka maalinkaas koobaad nabiga xabadkiisa waxaa laga saaray calaqa dawawiya qofka soo bani aadama wadnihiisa waxaa ku jira cad yaro dhiiga oo xinjir ah marka qofku marka naxo meesha cabsidu ka gasho ka argaxo waa halka shaydaanku markuu waswaasinayo meesha gafuurka saarto oo ku waswaasiyo waa halka xadu shaydaan baa la yiraahdaa waa shaydaanku dheefta qofka ku leeyahay meesha nifaaqa iyo gaalnimada iyo fisqiga iyo xasadka iyo xumaanta uu ka geliyo waa dhiiggaas isoo kaga beeraya markaas kadibna wadnaha ku faafaysa ilaa wada madoobaado oo qofkii dulmiga wada gaaro kulligiis marka calaqadaas nabiga maalinkaas uu ka saabay jibriil marka labaadna waxay ahayd maalinkii nabigu uu qaan gaarayay oo 15 sano u ahayd iyo haddana la dilaaciyay markaas waxa laga mayray wadnihii meeshii cadka laga saaray wixii madoobaha ku haray ama dhiigo ku haray iyo haddana laga mayray marka saddexaad waxay ahayd markii nabiga risaalada lagu bilaabayay oo waxyiga bilowga nabiga lagu bilaabayay iyo haddana la dilaaciyay markaas nabiga iimaan lagu cubay salawaatu allah wasallam alayhi marka saddexaan afaradna waa markaan nabiga dhalmiyay sallallahu alayhi wasallam oo afarta mar ugu dambeynaysa marka loo wanqaray nabiga wuxuu yiri wadnahaygii oo u jeedo banaanka soo dhigay jibriil nabiga laba suuxin waxa la yiraahdo awoodii kama tagin ma xanuunsanayo waana u jeedaa calooshiisa wanqaran iyo wadnihiisa halka lagu hayo markuu wadnihi halka dhigay yuu haddana sii dilaaciyay markaasuu wuxuu ka buuxiyey xikmad iyo iimaan oo weel dahab ah oo iimaan ka buuxo iyo weel markaa dahab ah oo xikmadi ka buuxdo yaa wadnihiga loo buuxiyay markaasaa bartiisii lagu celiyey kadibna jibriil baa sidaa gacanta u mariyey kaas waxay noqotay kama kaanad si xalooshay ahayd markii hore iyo iska noqotayba buraaqada la saaray nabiga sallallahu alayhi wasallam buraaqada marka waxay ahayd la yiraahdaa neef daabad ah ambiyadii hore fuuli jireen nabi aadam ilaa nabi laga soo gaaro nabiyullah marka ciisa waxay sacaan ku ahayd buraaqatu nabi ibraahim baa la yaqaanay nabi ibraahim buraaqadii markii uu shaam deganaa oo saara iyo nabi isxaaq halka u joogeen haajaro iyo marka nabi ismaaciilna ay joogeen marka ardu haram qafra iska ahaa markuu subaxdii xaga ka soo tago ee barqanimo yimaado haddana uu ku laaban jiray buraaqadu fuuli jiray way oo halka bil meesha loo socdo البريخسيال بنت يماد ودنا كلها مجري نبي الله إبراهيم براقدي مركا نوع عاصر نبينا الله كان صلى الله عليه وسلم مركا واحد ليه براقده دابت الدنيا اللي جايه قانا معهن أنبياء الله كوجل الله يقارو تهاي واحد تابك دابت بقشنا كجاوا مركي الله فيريو دمر كان كدير هو فوق الحمار وبين الحمار والبغل بالليل هذا معناه تعبر عن
fawqa alximaari wa duuna albaqli oo baqalkiina way ka yar tahay dameerkana waa ka weyn tahay haddana waxay leedahay weji bani aadam oo kale waarad markii waxa khayaalka sawiraya buraqada ka dhigayaan wejiga dhabdi ka dhigaan kuula qisadii ka sawirayaan ka waxaysanayaan ilaa waqti waxa filmaanta sameeya qisaskii tafiiriyaan bay canjalaan oo wax ka sameeyaan marka wuxuu buraqadii weji qofeed bay leedahay guud farasna way leedahay sayn farasna waa leedahay qof farasna waa leedahay duudkana wax u egta marka faraskii baalalna waa leedahay waa duulaysaa wixii marka tilaabta waxay dhigaysaa isheedu meeshay wax ka qabato inta isheedu wax ka aragto iyo halka bar tilaabsanaysaa haddana meesha xoolo ay ka faradugleen ka farqalanayaan ayadu waxay soconaysaa ayadoo sidii markaa laami dirita baabuur haystaan wax saaldaa lahayn meelna iska dhaqaajinaynin iyo saa u soconaysaa waan ordaysaa maca daalika waxay leedahay markaa labada lugood oo jeeni iyo laba adin iyo laba jeeni sidii fardii baa lahaayeen oo kale markay meel buura ku timaado labada jeeni baa gaabanaysa labada lugna waa dheeranayaan markay buurta ka daadegayso ama waadi u habanaysana labada jeeni baa dheeranaya labada adinna waa gaabanayaan markaas dhabarkeedu marna uu isbedelayn oo inay marna hoos u foorsato marna kor u kacdo dhabarkii ma noqonayso nabarku waa iska taagan yahay sidaas u taagan yahay xaqii xaq uma leexanayo laba saaldaynayso marka kor uma foocayso hoos u daadegmayso sidaasoo nabigu ku socday ilaa cidda amaakin halkan ku tuko waa meel hebel ilaa la sii yiraahdo amaakin badan oo nabiga tabarruk la yiri nabigu ku sii tukado ay kamid ahayd madiinatul munawwara oo maxruujadiisii ah masqadda nabiyullah ciisa oo baytul laxam ah madyan oo marka ceelkii nabiyullah muusa oo markuu cabsadii ku nastay oo gabdhii ugu waraabiyay shacib anigu ugu waraabiyay iyo geedkii uu fariistay oo markaa ku tukanayay halkaas iyo kamid ahaa amaakintaas markuu maray kadibkeed nabigu wuxuu tagay bayt maqdis ambiyadii kale watii loo keenay oo dhammaan halkaas imaam uga noqday oo la baray inuu yahay imaamkoodii iyaguna hayeen ka wasaradiisii haddana ay asxaabtiisa ka mid yihiin markaas kadib yaa waxaa naga loo soo raariciyey taburaqadii lagu xiray dhagaxii loo yaqaanay kacbatul anbiyaa ama qiblatul anbiyaa yaa la soo raariciyey mirqaadkii ama jaranjaradii micraajka loo yaqaanay kadib waati marka haddana ambiyadii laga homariyey haddana ku soo dhaweynayeen saawaadkii waa qisada marwada taqaanaan weligan la ku dul akhrin jiray ama xadiidka wada akhrisatay intayna badan markaas kadib ugu dambayn markii 7 sanadood nabigu dhaafay muxuu gaaray inta jirin baa loo soconaya waxa la weydiinaya waxa la weydiiyo jawaabaya markay tageen sidratul muntaha maqsuudna hadan laba halka ah markuu halka tagay nabigu malaku jibriil gadaal buu soo degay gadaal buu soo laabtay nabigu muxuu ku yiri nabi jibriil xaqaad iga haraysa ma halkan baa saaxiibkiis u haraa walaalkiis ku faaruqa buu yiri jibriil muxuu ku jawaabay wa minna illa lahu maqam ma'lum buu yiri ahad nagamida inaga malaa'ika ma jiro illa wuxuu leeyahay meel la yaqaano san dhaafi karin marka malaa'ikta intii kale waa la soo dhaafay maqamkoodii aniga ugu dambeeyay maqamkaygu halkan buu yiri halka haddaan dhaafana la harqani subhanahu rabbi buu yiri waxa ay gubaysa anwaarta iyo jaaliyadka rabbaaniga ay gubaya buu yiri halka ma dhaafin karo istaag gogoshii marka dhahirnaanta ilaa uu nabigu damco inuu kaba iska bixiyo ee marka kula istaag dusbin alayka kula joogso labada kabad baa la yiri waxa la yiraahdaa nabiyullah ibrahim nabiyullah muusa oo kamid ahaa ulul azbigi iyo nabigeena sallallahu farqa u dhaxeeya markii nabi muuse asagoo adduunyo jooga وادي المقدس أو كسر هبنيه فخلع عن عليك إنك بالوادي المقدس ضوى باليه وواحد كسر أنت وادي كده الرأي كمان إسكبيح باليه نبي جانا أنت عرشي لا فيه وهل كان لقيه يا أبو صاد الأنصي محل يري كمان كل إستاك محل تصينيا نبي جانا مخلوق إله لم يضحين وسلم مقام هين مركز شنتي صلوات أو كنت صلوات يا نبي قال لقصة فرض يعني صلوات الله عليه markaana shkonta salaadood waxay loo ugu qoray maxfuud ugu qoray inay shantan tahay laakiin kontonka marka hore iyadoo mucallaqa ah halka lagu qoray oo takraarka nabiga la labanayo iyo shafaacada nabiyullah muusa in lagu yareeyo ya lagu muujinayay oo ambiyadaas tashriifkooda lagu daahirnayay iyo shafaacada inoo shafaacayaan iyo murugta inoo murgayaan iyo maqaamka cinda Allah ta'ala ay ku leeyahay qabuulka ah
kadibna markii nabi muuse oo nabigu ku soo laabto u yimid samaa saadisa waa tuu lahaa laabo ummadaadu ma awoodo konton salaadood hadda nabigu laabanayay ilaahay bariyay salaadihii la ridayay ama 10 ama 5 waa loo riwaaye oo haddii la yeesho 5 baa loo tuuray 9 baa nabigu laabtay oo 5 loo tuurayay 45 ilaa marka ay shan soo harto haddii la waa 10 baa loo tuurana 4 mar oo 10 iyo mar shan ah 5 mar buu laabtay nabigu markaas iyo noqonaysa ilaa 5 la soo reebay kulli xaalba kadibna waa nabigu yiri inta kadib ma laabanayo oo yareen dambe marka uma laabanayo عند الله إن لقنا هذه سدا ساعتي لقوا فرض يالي ما يدق قول لدي قول كان لا بدي أن أتي ذا ساسا ومدي وقفوا ذي ومضى وقفوا ذي هذا الثواب كان أقول تام يالي قف كي شنتي صلاة أو صحيحا لي ماذا كنتم كي صلاة أجر كودي باللغر يا رب العزة سبحانه وتعالى وحمك أوقاته تشريف كان النبي الله سيبل فيه وحل قياسه وصنحين أنبياء إلهي يردن وكجدبي مقامات كودي ودافي ملائكة إلهي مقربين تهدمان وكجدبي ملك جبريل قدام بياك صهري هل عذاك المين راعين مسنا أنبياء كلا أمرك أرني صلاة دي سيف ذا وتقيف سوي دي يوسف ديدي إلى رب العزة وعديه نبي يقول ماشي وتاجي هاي إن يتوحي عند الله تعالى كقرة شنطة صلوات أي ديوانك أقرر أمة الوحيد أقرر تهاي مركز كذب وأنا بكون مع عبد السلام تهاي عباد الدين تيرك إسلام كوا صلاة النبي صلى الله عليه وسلم سلا صبح كان واحد يقول لي هاي من قامها فقد قام الدين ومن تركها فقد هدم الدين وكما قال صلى الله عليه وسلم قفكي مركز صلاة أوجا سصح أودو كذا دين إسلام كو يستاجي أوجي قفكي صلاة دي كعيارة أما ضيع كتجانا دين إسلام كو دمية أو ضيعي أو دليي إخوة الأعزاء عدي مركز صلاة مقام كذا دليسة هنا صلاة ويد دليسة جرهده عدي السحادة دي أركان تدي دليسة ويد دليسة وهده مركز بشر إلهي وحو مركز أبا هي إلا تعظيميه لغو تعظيميه دين الإسلام ودين محمد لغو حيه واي هدد بسايكم محوي هاي وبيت إلهي وبيت نبي الله محمد وبيت دين الإسلام كا وبيت علاء الإسلام كا وبيت تعليم دين الإسلام كا عدي مركز أسجع تعظيم ساهي أنت عد تعظيم ساهي نغير ساه عدي أسجع عمرتاهي أنت عد عمرتاهي نغير ساه عدي أسجع مركز وحود بتا أما جيت كيس جرتا أما وحود بتا أما هجاجي ويسه هنا أنت عد جويسبي نغير ساه أما ضيع ضيع ما وحود بتاعي حمرك مهمة غافل الأركان نقبلها إنه اسكت ضياه صلاة هي مقام كذا هي مسجد كإلهي تعظيم تيسي احترام تيسي وعقبة تيسي أنت أوده إنه سمرة كجابينين أو سنة قفنا عقود عنينه نفتيس عقود رئيسه واحد وقتها عبادة أضل إيمان رئيسه هذا يرت هذه بدن تهاي أديك عسكله هذا بس أديك بس ضي هذا سكوير هذا يرس هذا سكويري قرآن كفيري محله بيجري من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره ولو فيرس إن أحسنتم أحسنتم إلى أنفسكم وإن أسأتم فلها انتهينا نقول علي يا إخواني يا من عمل صالحا من ذكر وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولو فيرس عمل كاستوى أنا عسكري وحملك الرباح قف الله ركب يسجى وناجي يضاعدي والله إيمان لها هدو عند الله تعالى وحبا كربه إنه ما أنت بصدوه هدو إلى أكتيس عريري عذاب كربان إنه ما أنت إسكير أيوه أما وصل إيمان بقى قف بيا كوكان عياه الإيمانة إن العذاب وقاله أما قبر يكون بدوباده أما الصراط وكهره والنار كدعوه قف يكون راضي نغنيه قفنا راضيكم أها مركز عمل كان كلها اللهين أما قبر يكون بدوبان لها أن كدك تونانه ونبينا الراعي صلى الله عليه وسلم نبينا وحنكون راعين كرنا إنه علماء راعنا قرهدي أنا نكسر قبل إلى إذا كيس نبينا محمد عليه السلام الدال على الخير كفاعله خير قفك ذلك تسيي وحلم دي هاي عدي خير كافة شيء قفك هدو مركا شيء وناقا سميه إن الله أنت كضيت إلى قيام ساعة أجر كودو كليا الله سيريا يدو أجر لنا سمينين هذا النبي قال عليه الصلاة والسلام مالك النبي قال لي قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فظهر لقصب الله إلى شريعة المحمدية اللي كريه لي القرآن كلا رفعنا
ee dabaysha ladiifada inta la soo diro ahlu iimaan hal mar nafta laga wada qaadayo inta ka dhaxaysa wax alla waxa ahlu tawxiida wax alla waxay wanaag la imaanayaan iyo wax alla waxay daaca la imaanayaan ajarkooda mudaacaf iyo nabigu iska leeyahay salawaatu alayhi saxaabaduna intoo kale leeyihiin iyaga la ka soo qaadayna soo gaarsiiyay aimatu islaam nin walba oo marka kamida in alla intii asaga marka hadigiisu gaaray oo dacwadiisii islaamiga irshaadkiisii soo gaaray in alla intii raacdo soo yeelanaya muallimiintii iyo mashaayikhdi diintana soo gaarsiin nin kasta kamida in alla intii diintiisii ka sifarcantay inta diintaasi baaqi tahay ajarkooda kala yeelanaya ama hal loo niyeysan ya loo niyeysan rabbi ba oqray subhanahu wa ta'ala xafladan hadda xallo guntay ama loo caqiday nabigeena tacdiimintiisa calayhi salaam layladii mi'raajka tacdiiminteeda laylada mi'raajkana waxaad ogtihiin inay tahay markii nabigeena loo nisbeeyo ama loo fiiriyo calayhi salaam afdalu layali inda nabiyina muhammad sallallahu alayhi wasallam habeenada adduunka la keenay habeenka ugu fadliga badan nabigeena waa habeenkan islaam mi'raajka leeyahay maxaa yeelay waa habeenkii uu la kulmay rabbul izza jalla jalaaluhu waa habeenkii marka la siiyay 5 salawaat waa habeenkii marka ugu sareeyay ciidaha nabiga iska lahaa oo inta Allah looga sharifay amma laakiin inaga ummatu muhammada habeenka noogu sharifan oo isra waxay nooga qaalisan leylatu marka waxa leylatu qadri oo leylatu ciid nooga qaalisan oo leylatu marka jumca nooga qaalisan waa leylatu wilaadati al-mustafa sallallahu alayhi wasallam habeenkii nabiga sallallahu alayhi wasallam waayo inta soo dhan waxaan ku helnay nabiga dartiisa sallallahu alayhi wasallam isaga haddaan la heli lahayn inta ma la helenba marka nabigu asaga sabaha intaana waa musabab waa sabab muqaddam ala musabab sababkuna uu ka horeeyo marka musababka sabab iyo musabab sabab ka horeeyo oo muqaddam noqonaya marka habeenkaas inaga noogu shar badan amma laakiin nabiga daatadiisa habeenkan ba u fadli badan alisoo mi'raaj oo qiimo sareeya ila waxaan makhluuq la siibay asaga la siiyay habeenka marka tacdiimka inta la eg iyo tashriifka inta la eg dadkii ilaahay ku ilhaamiyay ee uu karsiiyay dhukuran wa inaathan ee marka inay xafladan qabanqaabiyaan intaano islaam ay isu keenaan waliba haddana intaano dhalinyaro ah ay isu keenaan ugu yeeraan nabiga calayhi xafladiisa ka qayb galaan oo sharaabkiisa ka waraabaan oo maxabada nabiga ka helaan halka oo nabigeena calayhi salaam nafaxaadkii nashadiisi markay qayb ka noqdaan inta dadkii marka u saab noqday inta soo xaadirtay ala shakhsi ajarkii la siiyo oo kale iyo qofka saleeytoodii ma loo kala jarayo ogaada hadii intii qabanqaabinaysay qof kasta ka mid yihiin ajarkiisii waa gaar daalkiisa dhibkiisa waa gaar intii soo xaadirtay ajarkoodii kala qof la arko gaar u leeyahay ma loo kala qaybinayo xataa rabbul izza fadligiisa way wax la heli karo ma ahan marka dadkaasi way liibaaneen waana qanimisteen nabiguna wuxuu yiri sallallahu alayhi wasallam al khayru kathiru wa qalilu fa'ilu war khayrku waa tira badan yahay waa wax fara badan laakiin cidda yeelayso falaysa yar buu nabiga sallallahu alayhi wasallam dadkan maxay yiraahdaan khayrka alla dadku ma kala qariyo kala qabtaa yiraahdaan waa run khayrka idoo loo wada jeedo yaan dad loo dhaqaajinayn oo muddo gacmo laga haysto indha ka fiirsanaya dadna inta loo fuudeeyay oo carbinayaan oo dhaqaajinayaan ay hawshii marka cabayaan marka waa dad loo sakharay waxaad ogaataan xadiidkii nabiga xasuusanano kullun muyassarun lima khuliqa lah qof kasta waxa loo sahlaa wixii la abuuray haddii ina nabiga jaclaato lagu abuuray salawaatu alayhi haddii iqtidiisi lagu abuuray haddii taa fara badan ina hesho ummad badan adiga darta alla ku hanuuniyo alla ku qoray amalkeeda lagu sahlaya waxaad ogaatiin qofku hadduu dadaalo oo dadka marka xumaatada ka saaro bidcada ka hanuuniyo fisqa ka hanuuniyo daacada ugu yeero shariicada ugu baro dadka khayr ugu yeero mas'alada yaqaan uu sii faafiyo hal qof oo marka ama faasiq aha ee dartiisa hanuun ku helay ee salaadii ku tukada wanaagii ku toosay hal qof oo aqeeda ka qaribneed oo nafsi aqeeda fiican ku helay hal qof oo mas'ala ay aan aqoon oo asagu baray hanuunka qofkaas helo yaa wuxuu ka khayran yahay kumanaan geela in la siiyo sadaqaysto
حديث صحيحها الشيخين نقول حيري سلا لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حور النعم النبي صلى الله عليه وسلم كما قال صلى الله عليه وسلم هذه قدرتها هل أحد كلجيس إن الله كهرونيو وهنوكي سما الله كاجديكو يا كاجا خير بدن جيل عربي جعل شيء كانوا قرحان وجيل عروضك جديدة مسألة وقصة كل بحديث تقرب الله تعالى وفي سبيل الله حوله هذا خير لقوا بحي خير بيشان خيرية لقى الله يوحي تهاي حوله خير كيان ليان مركي حوله حلال يهين وناق يوشرع لقوا بحيه مركز خير يان ليان مركي جيل وذا جديدة أو خير بدن هل عرب جعلات إن لقوا السيء هذا لكوا عالف الشيء هذا عادي جهات يكون بحثتي وحكاجا خيرا هل روح حضرت على كل النبي صلى الله عليه وسلم مركي أنت سويرتي خيرك صاب النقطي إلى أنتنا وكل بنيان أنا وحنا نقول دعينا فقعد فرات الله كدقو هو ولي قد هر الله في ريون قدر الله يجينا كدقو دي آخرة نبي جينا حب جيسنا الله وعبسيه لما أنت الله متكأ قلبي وهذا حبك النبي كبر عليه السلام خاصة ضدك مك حفلات دانق مقابية كأذيجي هبني مال بأهري إنسان ودعضه إلهي وحن أوي ديننا بجاه المصطفى صلى الله عليه وسلم نبي مدك تيسا إنه كقبته الدون كان شرف يا علم مع العمل يا سيدي سيسو كل بوان الله نكو عمليه إلهي فضلك بجاه النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم بجاه مشايخ العظام أنت صح حضرتنا معتوقين مغفورين الله كي الله نقول حريه أنت أصلا كسر قوانين هذا هذا وبالله التوفيق Go.